kusoo dhowow isla qaybtii labaad iyo boqorlaan dheere isla boqorka keligii uun goobtani kuba laba rag kale ayaa iyakuna awooddooda iyo tamartooda soo bandhigaya si ay ubad soo fiiriyaan. Waa ku hubsaday in uu hadda laynkaasi sii socon doono ama ay qaadi doonto ubadka dhiiggiisa sii wadi doona. Diyaarsanaanta isla boqoradani waxay dhammaan kartaa 5 cisho gudahood. Isla muddada yar gaaban waxaa dhici kara inay kulmaan 250 jeer. Isla mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ay la kulmayaan ma helayaan goob degan oo ay hawlahooda ku sii wadan karayaan, waayo goobtani waa goob loola ka jiro. Mar la ugaadhsanayo ugaadhsi lagu maqan yahay, mar libaaxyo kale ay ku soo weerarayaan, iyo mar ayba kuu suurtogelayn oo hareerahaaga kuwo kale ay ku hareeraysan yihiin. Sidaa ay tahay waa dadaalayaa oo nin kastiba beertiisa oo waraabsanaya si ay midho fiican uga soo go'aan. Isla dibadeedka iyo ugaadha kale goobtani joogtada naguma jirto goobaha wax ka dhacayo, waayo waxay kusoo biirinayaan isla cagabaruuro kale oo noqon doona mustaqbalka libaaxyada iyo ka layn doona ama ubadkuga layn doona. Waa inay dagaal ku qaadaan hadda oo ay ka dagaalamaan. Boqorku waa ka hortegay si uu kala eryado, dib ay u kala carareen, isagana waa soo noqday. Weli hadda la isma dayni, waa la eryanayaa. Ubadka iyo gooluhuba way carareen. niyad adayg mar kale baa ku noqday, isaga miciga geeska ayaa la gelin gaadhay. Tira ahaan waa laga badan yahay, awood ahaan sidoo kale uma dhigmo iyaga oo dhan. Mid kaliya waa iska celi kara, isaga ayaa hadda la caydhsanayaa. Boqorkii waa la eryanayaa, waaba la gelin gaadhay. Markani halis ayuu galay, waa badbaaday. Markani gooshiyo sidoo kalena way cararaysaa. Hadda inay guulaysteen ay dareemayaan, walow ay dagaalada galeen waa nool yihiin. Haddana la soco qaybta 3 iyo barnaamijkani.